soo dhawaada saataytalka ku soo aragteenba waa muuqaal aynu ku eegayno caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa habeenkii ma seefa mise seef maaha ma lagu caawin karaa mise laguma caawin karo hadda halkaan ku sugannahay waa downtownkii magaalada ee lagu magacaabayay Inamol ay dadku u soo caways iman jireen bal maanta iyadoo luga iyadoo gaariya intaba waynu eegaynaa magaaladu ma seefa mise seef maaha habeenkii ma la dhex socon karaa mise lama dhex socon karo halkee waa lagu caawin karaa geemasha xagee lagu ciyaari karaa ayaynu isla eegaynaa haddii uu soo gaaro muuqaalkan fadlan meel sare gaarsii halkaad nagala socotaana waa Maslax Vlogs idinkoo naga bortay muuqaalo kala duwan haddana hawada ku soo noqonnay ismoojiya muuqaalkan meel fog la gaarsiiyo meelo badan aynu booqanaynaa haddii la caawinayo iyo haddii geem la ciyaarayaba dad yow badan ayaa waxay ka dhaadhacsan tahay in magaalada Addis Ababa inayna safe ahayn habeenkii ama aan la socon karin dadka qaar laakiin fikirkaas bal caawin isla eeganaa let's go saaxiibayaal saacadu waxay sheegaysaa 12 habeenimo haddana qof kaste uu lugeynaya qof ka baqaya yacni in ama la dhaco ama maaragtay cabsi ay hayso ma jirto wadarka baabuurta wada socda saacaduna waxay sheegaysaa ama goor sheegaysaa u taqaanaan 12 habeenimo garaacaysa waxay ku sii socotaa 1 habeenimo midnight kolba saa u taqaano dad baa iga dambeeya dad baa iga horeeya ya waddanku waa safe ma garanaysaa let's go حاجة وحاجة موضوع كيرو ضدك المسابقة والله ما يعيش سلامنا سنترو زاجارش عم اسمر بيقولوا هو عشان
shan baa kun bisaamaya innaa maqaatee lama sintana silsa okay silsa sabad natib minaamin naarna waa miisaankaygii shaqaysanaya marka 5 bir buu qaadanaya waan filayaa laakiin waan ugu daraya waan ka farxinaya shaqaysanaya waxaa yidhi waa ilmo da'yar xilligaa uu soo jeedaa dadku lacagta ka guraya waddada maraya ama jimicsiga ama weight losska ku jira deetana wixiisa ku tirsanaya waa shaqo loo baahan yahay da'yar yahay maogtahay dhiirigelin ba u tahay intaas waxaynu soo lugeynay masaafada 2 kilomitir baynu walk sameynaynaa anagii asxaabta annagoo eegayna magaalada safetygeeda iyo in qofku lugeyn karo habeenkii iyo inuu lugeyn karin hadda kahor way jirtay inay dadku biqi jireen oo magaalada filooyin jiray laakiin isbedelka hadda ka hana qaaday caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa ayaa waxaa dhacday in la yidhaahdo meheradaha lama xidhi karo ilaa iyo inta fiidka meheradaha qaarna ay soo jeedaan oo 24 hours ay shaqeeyaan waxaan u baahanay anagii asxaabtu waxoogaa sam energy inaan qaadano energydaas waxaa ka mid ah inaan iska cashayno kadibna aynu muuqaalkeena wax yar kadib aynu soo xidhano keliya waxaan iga digayaa markaad waddooyinka aad maraysaan inaad tensionkiinu u taagnaado sometimes waxaa dhici karta in taleefanka lagaa boobo ama gaf lagaa siiyo adigoo meel kale ku maqan laakiin cabsi kale oo maaragtay aad ka bixi karto waddooyinka markaad marayso ma jirto qof kasta hadduu tensionkiisu jirana wax lagama qaadan karo waddanku sidii hore maaha kafeteriyooyinka haddii aad habeenkii casho u baahato waad iska soo baxaysaa 24 hours downtownka kala tegaysaa ama haywiyada ayay saaran yihiin inta badan kafeteriyada hadda kafeteriyada aan taaganahay waa meel madcama ama caraba iska leh waddadan lugeynayni waxaanu go'aansanay inaan xagganba ka cashayno oo anagii asxaabtu some energy ka qaadano kadibna muuqaalkeena wax yar kadib aynu soo xirno saaxiibayaal waxaynu ka imanay makhaayadii hadda aan ka cashaynaynay hadda waxoogaa some energy baan qaadanay muuqaalkeenana bartan ayaynu kusoo xidhanaynaa magaaladu waa safe saacaddu waxay sheegaysaa 1:00 baabuurtuna way socdaan dadku way lugeynayaan fadlan muuqaalkan haddii uu kusoo gaadho dad badan gaadsii subscribe-ta like-ta share-ka anagii lowdina